wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Somaliland Afweynka xukuumadda Somaliland ayaa ka hadlay Allahu naxariistay hal qof lagu dilay deegaanka Afweyn ee gobolka Sanaag. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Somaliland wuxuu sheegay in ciidamada qalabka sida ee Somaliland ay ku daba joogaan gacan ku dhiglihii falkaasi geystay isla markaana sida ugu dhaqsaha badan ay u soo qaban doonaan. sidaas oo kale wasiirku waxa uu sheegay in iyadoo la raacayo heshiiskii hore loo kala dhexdhigay beelihii halkaasi ku dagaalamay uu dhigayo in qofkii qof dilaba loo dili doono. isla markaasna wuxuu sheegay marka ciidamadu ay gacanta ku soo dhigaan sida ugu dhaqsaha badan sharciga loo horgeyn doono sida uu sheegay wasiirku. ku hadlaya magaca xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland taasi tiirayaan kan wadraya runtii waxaad shay gacan ka gardaran gacan ku dhiig leh xukuumadda wax ka go'an iyadoo tixgelinaysa ama fulinaysa heshiisyadii dhex maray labada beelood Saad Yunis iyo Biido oo ahaa ciddii wax dishay loo dilo. xukuumaddu waxay geed sare iyo geed hoose u fuulaysaa sidii ay u soo qaban lahayd gacan ku dhiig lahaa. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa beesha geerid ku dhacday oo si geesinimo leh talaabo geesinimo leh qaaday. dilkan ka dhacay deegaanka Afweyn ee gobolka Sanaag ayaa imanaya iyadoo dhawaan ay ahayd markii heshiis la kala dhexdhigay beelo dhowr jeer halkaasi ku dagaalamay. hasaatee aanay in dhawaala jirin wax dagaal halkaasi ka dhacay marka laga reebo dilkan xalay lagu dilay marxuumkaasi. عبد الرزاق أحمد عبد الكريم SomNews TV.